kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiye waa kaftameena waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogi waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas wey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi ma qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la seexay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018 waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateska qofku uu ku iloobay hadduu qofka seexay see ku iloobay waktiga uu seexay waxaan ku yidhi haye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yidhi marka waayahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga dan leeyahay waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi horey wuxuu yidhaahdeen qabye ninkeeda dhammaystira waxaan ku yidhi waayahay waa dhabi qabye ninkeeda dhammaystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yidhi maya waa 2019 waaya maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyu yidhi waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhawey oo webiga kasoo fatahaya in la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan uu yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yidhi inay sharafka ummadda Soomaaliya soo celiyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudulka marka la dhiso hortiisa daashaa lagu dhisaa daashka si uu hoos u yeesho u qabobanaado waxaa la saaraa bal ama waxaa la saaraa bul sisimeed ama caws yaa la saaraa waxaasoo dhan water proof maaha biyaha ma celiyaan roob hadduu do biyaha waa soo daynayaan soo maa jiilaalka waktiga uu jiro dabaysha kacaysa bustii iyo caradii iyo ka soo biday beerta oo dhan daashkaasay korkiisa fuulaysaa roob hadduu yimaado marka roobka ugu horreeyo yimaado marka maxaa dhacaya caradii iyo bustii oo dhiiqa noqotay ayaa ka soo da'aysa sow maha niman akhyaaraha mudulka ku dhex jira roobka iyo barwaaqada nimcada ilaahay keenay u bogsan oo ay aad uga faraxsan nimaa dhahay aniga xaradaas da'aysa inaan kusoo qabaysta waay mudulkan kuma jiraa mudulka irdiisa markuu soo istaaga wuxuu arkay daashkii mudulka ka horreeyo dhiiqa ay ka da'aysa dhiiqadan maan dhex mari karaa nimaa yidhi oday ah oo meesha ku jira marka wuxuu go'aansaday ninkaa dhiiqadaas ma dhex mari kartid iska joog meeshaada iska onkoro mudulkaaga iska joog nin oday oo xaakima u yimid wuxuu yidhi qabays ma rabtaa haa roobka iyo xareedda bannaanka inaad kusoo qabaysataa rabtaa haa okay laba option aa kuu furan mid waa midkaad dooratay inaad iska joogtid oo xaaladda hadda aad ku sugantahay aad ku sugnaatid iska joogtid ruub sugowgaaga iska kaa haayo
kulaylka waxaa jiro korka wax ka soo baxo la yidhaha roob sugow roobka xareedda haddii lagu qabaysto waa ba ahaa la yidhaha roob sugowgaaga iska hayso dhahay meeshaad iska joog waa optionka aad dooratay laakiin aniga waxaan kuleeyahay dhahay bax dhiiqadan dhexmar banaanka u bax dhiiqada ka qubayso biyaha soo dhiiqada waa kaa dhaqmaysa marka dambo soo noqonaysidne waabta daashka oo dhiiqadii ka dhammaatay oo biyo caadi ay ka socdaanaad soo dhex mari doontaa ilaan dallad ma jirtee marka annaga hadda waxaana sugaya waxay tahay wax badan inaan dhiiqadaa dhex marnaan u baahannahay dhiiqada ma dhex mari kara laakiin xareeddaas banaanka wallahi waa qurxoon tahay waa rabaa waa fiican tahay inaan ku qubaysto haddaan dhihi tago mudulkaan dhex joogay ay ma qubaysanayo dhiiqadii marka maxaa u dhigma dhiiqada waxaa u dhigma kharaaro ad adag howlo adagoo dhib badan dhiiranaan cabsidoon iska yarayno reerka ciddii ay fiirinaysa haddaan saas dhaho nin reer hebel ah ra'yigiisu ama gabar reer hebel ah ra'yigeeda waa fiican yahay haddaan dhaho wadaa reerkaas waa jufadaas waa isdirirsanaa jirne maxaa ra'yi ugu raacdaa lay dhahayaa maya meeshaasi muxuu ahay haddaad cabsi un ay kugu qofulnaantood cabsato maya jidkaan lama mari karo askarigaa noqo idhahayo maxaa hadlaysa adiga maxaa tuug maa tahay qora maa garabka kuu saara dadka maa dili rabtaa oo maxaa marka oo jidka hamarin lagu dhaha war aniga qorayna ma sito dadna dili rabo kuwa waxnama qarxiya iga leex waryaha inaad tiraahda jidka martida kugu habboon haddaadan fidno kale iyo wax kale markaas marka maxaan u baahannahay dhiiranaanaan u baahannahay inaan ku dhiiranno beriyo shiddo waa in gaabanaa la yiri maalmaha dhibka iyo ciriiriga ee soomaaliya maanta u dhima waa wakti kooban waa yaryahay aan dhiiranno aan hore u soconno talada fiican aan qaadanno saaxiibkeenna ama saaxiibadeenna talada fiican haysaahe aan ka qaadanno aan ku ixtiraamno weliba inay ra'yi fiican tahay gabadhan iyo wiilkan inuu ra'yi fiican yahay aan ku ixtiraamno oo aan u qirno oo aan dhiiri gelinno si uu usii fikiro qofka gacmo wax qabta waa nugu yaallaan ciidan wax dilo waa qabnaa qoryasito shabaabaan haddana 4 wiilo shabaabaan meela ka galnalaanahay kumanaan kun 3 jubaar 4 jubaar 6 jubaar ciidan ah oo ka xoog badan oo ka xoolo badan oo ka hub badanna waa noo joogaa talaan u baahan go'aan inaan gaarnaan u baahannahay inaan go'aan gaarnaan u baahannahay shabaabaanan celi karin alqaacidaanan celi karin daacish iskaba dhaafo barbarad oo bilow ah cidna celi karta malaha laakiin dhallinyaroy inteenaan iyo inta inaha kaloo lamida intaa isku nimaado yaan go'aan gaari laanahay waxaan rabno waddada aan rabnaan calaamaysan laanahay waddadaanaan maraynaa intaan uga leexan mayno ciddii nagu raacsan ha nagu soo raacdo ciddii inay naga leexisa maagtana horaano dhaafaan leenahay go'aanka noocaasa ha naga maqan mutaalacadii carabiga iskoolka lagu dhigi jiray muxuu ahaay shicirka ku yila muxuu ahaay ida shacbu yowmun araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadr walaa budda lilleyli an yanjali walaa budda lilqeydi an yankasir yacni go'aan inaad gaartay dadku hadday go'aan gaaraan lama hor istaagi karo waa soo aragnay swalaa go'aan gaartay gumaysi waana hayse waaye wadaadadii iyo midowgii maxaakiimta islaamiga iyo dhallinyaradii wadaniyiintii ah go'aan gaaray woolodhiski waana haysan waayeen war go'aan haddaan gaarno maanta shabaabna ma haysan karo nama haysan karo annaga un baan weli go'aan gaarin go'aan haddaan gaarno hogaamiye xun ama qof xun nama hortaagnaa karto go'aan haddaan gaarno xildhibaan xun nama haysan karo wasiir xun nama haysan karo anaa guddoomiye xisbi xumaada idima horjoogi karo naga leexad leediin xasan sheekoo guddoomiye idin ah haddii fikirka fiican iyo talada fiican ama isagu ay ka imaan waydo ama markay idinka timaado uu qaadan waayo guddoomiye raalli ahaabe muxuu ahay nookaadii muxuu ahay caliyaa guddoomiye noo noqona ama caashaa noo noqonaysa la dhahaa waa saas yaa ka yani qof bini aadana qof yani bini aadam oo ilaahay abuuro oo ka karaamo iyo sharaf iyo haybad badnayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam miyay jirtay wamaa yantiqu canu lhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa sow ma dhihin rasuulka inta loo yimaado la dhaha yaa rasuulallaahi warkaan aad sheego haysa ra'yi miyaa mase waxyi waay waxyi waay hadduu ilaa lagama hadli lahayn waa la bes siduu u yaha loo qaada maya u dhahay ra'yi waayu dhahay ra'yi hadduu yahay kan ka warranaa la dhahay ra'yiyaa la barbar dhigtay waana kiiba la barbar dhigtay oo na qaatay
war annaga intee joognaa maxaana ra'yiga naloo barbar dhiga karin warkaaga waa laga fiican yahay kanaa ka fiican maxaan aniga la ii dhihi karin oon qof kale loo dhihi karin saaxiibkaaga maxaa loo amuuqaa xumaadaa maxaad u leedahay haddii ra'yigiisa mid ka fiican adaasaada mise warniyow kana bal fiir bal kan amuu kan noo dhaamaa annagana waxaa waajib nagu ah oo waajib diina nagu ah ra'yiga fiican inaan qaadano ee aanaabaa hore ra'yi meesha u dhigaya maxaa kayga mid loo soo daba dhiga ama maxaa kayga mid loo soo dhinac dhiga inaanan dhihin markan muxuu ahay wuxuu keenaya maxay yihiin waaba maya walaalkaaga iyo walaashaaga kula qayrka ah caqliyay leedahay aqoonay leedahay waayo aragnimadeeday wataa qof kale fotocobigiisa ama jiryo qofba qofka kale waa ka duwan yahay qofba qofka kale meeluu uga fiican yahay ma dhahayo meel walbuu uga fiican yahay laakiin meeluu uga fiican yahay yah dadku meelaha ay ku fiican yihiin aan ka qaadanno meesha adiga ku liidatid anaa ku fiican meesha adiga ku liitan adaa ku fiican haddaa marka taa adiga ku fiicantaha aan qaato taa aniga ku fiicanahayna aad qaadatid oon isu geyno waxna hor istaagi kara waxna celi kara ma laha waxaan higsanaynaa sanadkan inuu ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khayr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummaddeena iyo shacabkeena ay laga sugayaan waxa ugu horeeya dib u heshiisiin dhexdeena horta inay ka bilaabato
waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilowno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan hayaa warqad aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqaynta golaha shacabka sidii maxaanku idhaahdaa dowlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeena weeye weliba waxaan u gelaynaa gudaheenna wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeenna soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo horey u dhacday inaan ka shaqeyno siday isugu soo dhawaan lahaayeen siday gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu ilaah yidhaahdo meesha ka soo bilaabatay marka 4 bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigaan furmayey oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qudbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyey yaa aqalka sare waxay yidhaahdeen annaga golaha shacabka meel la fadhiisan mayno waxaan u yeeray guddoomiyaha maxamed mursal iyo maxaanku idhaahdaa cabdi xaashi waa wada fariisiiyey xaaladooda waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fadhiistaan aysan wada fadhiisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas-uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeenna haddaan wada jirno shacabkeenna waa wada jirayaan haddii aan kala maqan nahayna shacabkeenna waa kala maqnaanayaan soomaali haddaan nahay annagaa heshiino dhexdeenna intay rabta lagu qaadato ma ogolin inay cidda soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeele waxaan ogahay intay rabta ha qaadato haddaan nahay soomaali xalka annaga nagu jiraa annagaana heshiinayna cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saxiixaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala saxiixay weliba dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshiinno cid walbana aan u sheegno annagaa iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annagaa walaalo ah kaftanka waa tana marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiye waa kaftameennaa waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see weegyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogi waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi maqabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inooga tagaane bal fiiri haddii uu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018 waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalin ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri
wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateski qofku uu ku iloobi haddii qofka seexay see ku iloobi waktiga uu seexay waxaan ku yidhi haye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibnaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yidhi marka waayahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga danleeyahay waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi hore wuxuu yidhaahdeen qabye ninkeedaa dhammaystira waxaan ku yidhi waayahay waa dhabi qabye ninkeedaa dhammaystireen taas 2016 ma ahayn wuxuu yidhi maya waa 2019 waaya maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyeen waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku ahdaa kanaalkaan sheegay ayaan dhawey oo werihi kasoo fatahayay in la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan yidhi inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum